السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن داوديال meel kasta oo dunida nagala socotaan habeenimo axada bisha December ay sii galay 8 sanada 2024 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah qoyska maayarka magaalada caasimadda ee Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo afka furtay isla markaana sheegay in xadgudub weyn lagu sameeyay iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ee waaweyn markaasi loo soo jeediyay duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo la sheegay in dambiyo weyn markaasi lagu hayo iyo waliba lacag markaasi ay lunsadeen markaasi guud ahaanba xafiiskiisa lagu lunsaday waxaan eegi doonaa guud ahaan dambiyada waaweyn ee xilliga markaasi Cabdikariin Axmed Mooge la leeyahay waa lagu hayaa oo markaasi waa u geystay iyo waliba cabashada ay qabaan qoyskiisa gaar ahaan hooyadii iyo waliba markaasi qoyskiisa oo qabo markaasi iyaguna cabasho weyn waxaan ay sheegeen inay dacwad ka furan doonaan markaasi maxkamadaha Somaliland xogii ugu dambeeyay xaaladda markaasi maamulka magaalada Hargeysa oo cirka isku soo shareeray markaasi markaasi dambaysa iyo Axmedoobe oo caawa ka cabsi qaba in laga soo weeraro dhanka badda iyo waliba markaasi in dhinaca looga imaado ciidamo dheeraad ah ayaa caawa la geeyay markaasi xeebaha maamulkaasi Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo xeebaheeda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay maanta ka dejisay magaalada Ras Kamboni ciidamo markaasi ciidanka badda sidoo kale waxa magaalada Muqdisho ka soo baxay ciidan fara badan oo dhanka badda ah oo markaasi la tilmaamay inay ku soo fuulayeen dhanka Jubbaland ciidankaas ayaa laga cabsi qabo markaasi in Axmed Madoobe guud ahaan ay u soo dusaan oo ay markaasi magaalada Kismaayo ay soo galaanba waxaana taasi ay keentay markaasi in tallaabooyin waaweyn caawa la qaado dhinaca kale xildhibaan Firimbi xildhibaankii markaasi faaray askarigii ka tirsanaa ilaalada baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu bixiyay markaasi raali gelin iyo waliba xaal marin uu siiyay markaasi askarigii uu faaray waxa maalmihii ugu dambeeyay markaasi dacwad ay ka taalay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NSA balse ugu dambeyn markaasi waxa kulmay Firimbi iyo askarigii markaasi uu faaray oo iyagu halkaasi markaa isku cafiyay sida wararku tilmaamayaan xaal marinta uu bixiyay anigi doona iyo waliba markaasi sida uu u raali geliyay guud ahaanba Firimbi xildhibaankaasi markaa askariga uu ku xadgudbay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka ka imanaya Hargeysa waxay sheegayaan in guud ahaanba xiisadda iyo waliba markaasi arrimaha ka taagan dhanka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa inay sii xoogeysanayaan markaasi dambaysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa dhexda kaga jira markaa maalmihii ugu dambeeyay eedeyn xoogan iyo waliba cabasho ka imanaysa qaybo kamid ah shacabka reer Hargeysa waxaana ay ku eedeynayaan shacabku qaybo kamid ah in Cabdikariin Axmed Mooge markaasi lacagihii iyaga laga qaaday markaasi in meel kale lagu maalgeliyay haatan waxa soo baxay eed kale oo ah in Cabdikariin Axmed Mooge markaasi baaritaan lagu sameyn doono la xiriira dhanka guud ahaanba hantida dadweynaha iyo waliba hantida dowladda hoose oo laga cabsi qabo markaasi in loo isticmaalay arrimo gaar ah karaan arrimaha markaasi ololihii doorashada ee xisbiga wadani ay galeen iyo waliba in arrimo kale uu adeegsaday markaasi Cabdikariin Axmed Mooge saacadihii ugu dambeeyay markaasi waxa la bilaabay baaritaano ku aadan arrinkaasi oo la sheegay markaasi la doonayo in guud ahaanba lagu baaro Cabdikariin Axmed Mooge duqa magaalada caasimadda ee Hargeysa Cabdikariin Axmed waxa uu leeyahay markaasi sidii uu guuleysan lahaayeen xukunka xisbigii mucaaradka ah ee haatan guusha weyn ka gaaray doorashooyinka Somaliland ee wadani balse isagoo wadani aan la wareegin markaasi xilka madaxtinimada Somaliland ay wararku tilmaamayaan in guud ahaanba ay xaaladda Cabdikariin Axmed Mooge sii xumaanayso markaasi dambaysa waxaana qaar kamid ah markaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ay soo jeedinayaan in baaritaanku la dedejiyo isla markaana Cabdikariin Axmed Mooge guud ahaanba xilka laga xayuubiyo oo kalsoonida markaasi ay kala noqdaan xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo iyagu markii hore doortay haddii taasi ay dhacdo markaasi waxa guud ahaanba halkaasi ku soo gabagaboobay riyo weyn oo uu qoyo markaasi Cabdikariin Axmed Mooge oo ahayd in dowladda haatan dhismaysa ee markaasi uu garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Ciro inuu markaasi uu door weyn ka qaato isla markaana loo madax banaaneeyo shaqadiisa oo sida markii hore uu ku doodayay waxa uu ku doodayay markaasi in guud ahaanba shaqadiisa faraha lagu jiro oo xukuumadda markaasi Somaliland aanay ku qanacsaneyn shaqada uu wado Cabdikariin Axmed Mooge waxa dadku isweydiinayaan ninkan waxa si galaafanaya markaasi xisbiga kulmiye ee xilka ka sii degaya mise duufaan kale ayaa markaasi ku kacsan oo isaga u gooniya warku waxay tilmaamayaan Cabdikariin Axmed Mooge markaasi saddex qodob ay yihiin qodobada guud ahaanba xilligan albaabada ka soo xidhaya waa qodobka ugu horeeya markaasi waa nin dulqaad aan lahayn oo markaasi aan u dulqaadanaynin guud ahaan cabashooyinka loo tabinayo iyo waliba markaasi duufaanta siyaasadeed ee ku kacday haddii aad xil umadeed qabatana mar walba waa lagu dhaliili haddii xitaa aad markaa wax walba oo wanaagsan samayso ama wax walba wanaagsan aad qabato waa lagu dhaliili oo bulshada qaybo kamid ah ayaa markaasi ka hor imaanaysa
inaad markaa tiraahdo guud ahaan markaasi anigu lagama hor iman karo oo ninkii ugu fiicnaa ama duqii magaalo ee ugu fiicnaa ee soo mara Somaliland ayaan ahay hawl nama wada ee halayga dhulsugo taasi markaasi ma soconayso oo bulshadu ay ku dhaleeli waxa si laga baahan yahay inaad banaanka u soo baxdo oo aad qanciso markaasi dadka iyagu guud ahaanba xilligan ku eedeynaya ama xabashada ka qaba dhinaca kale qoyska markaasi Cabdikariin Axmed Mooge duqa magaalada ayaa waxay sheegeen in gaf weyn loo geystay isla markaana lagu xadgudbay markaasi iyaga iyo ciddooda waxaana ay sheegeen inay maxkamad markaasi ay la kori doonaan cid kasta oo ku xadgudubtay markaasi iyaga shakhsi ahaan gaar ahaan hooyadii ay sheegtay markaasi in lagu xadgudbay oo aflagaado loo geystay qoyska Cabdikariin Axmed Mooge ayaa haatan markaasi waxay sheegeen inay maxkamadaha ka furan doonaan markaasi dacwad waxa tan ay noqonaysaa markaasi mas'uulkii ugu horeeyay sida markaasi haatan muuqata ee Somaliland ee markaasi dacwad furanaya ee ka dacwoonaya markaasi shacabkii uu xukumayay guud ahaan Cabdikariin Axmed Mooge xaaladdu way ku xun tahay waxaan laga cabsi qabaa inuu xilkiisa markaasi uu waayi karayo dhinaca kale magaalada Kismaayo wararka naga soo gaadhay waxay sheegayaan in caawa markaasi ciidamo dheeraad ah ay geysay markaasi maamulka Jubbaland uu geeyay dhanka badda isla markaana ciidamo markaasi dheeraad ah lagu arkay ilaa maqribkii ilaa maanta markaasi ciidamada badda ee markaasi ama ciidan caadi ah oo ciidankii Jubbaland ah in la geliyay badda si ay markaasi halkaas difaac xoogan ay u galaan lama oga inay heleen markaasi xog ku aadan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso in dhanka badda markaasi ay ka soo weerarto magaalada Kismaayo si ay gacanta ugu dhigto Axmed Madoobe maadaama gurigiisa markaasi uu u dhow yahay badda isla markaana xaggaas hadii laga soo weeraro markaasi ay fududaan karayso ciidan fara badan oo ciidan badan markaasi ayna lahayn markaasi Jubbaland oo dhankaasi markaa ay iska difaaci kareen Soomaaliyana barihii ugu dambeeyay waxa la waday tababar xoogan oo la siiyay markaasi ciidanka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba maadaama markaasi arrimaha loo arkayo markaasi inay tahay meel uu ka jilicsan Axmed Madoobe oo laga soo weerari karayo ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay geysay magaalada Raas Kamboni ciidamo kuwa badda sidoo kale waxa magaalada Muqdisho ka soo baxay ciidan markaasi iyaguna ciidanka badda lama oga ciidankaasi waxa ay qabanayaan iyo shaqada ay u soo baxeen balse Jubbaland iyo Axmed Madoobe maamulkiisu waxay dareemeen in iyaga loo socdo oo markaasi aanay jirin qorshe kale oo xilligan guud ahaanba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidankaasi u soo dirtay isku soo duubay xiisada kala dhaxaysa markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa markaasi dambaysa ka sii daraysa dowladda Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa in Axmed Madoobe markaasi gacanta lagu soo dhigo oo guud ahaanba uusan ka sii talinin maamulkaasi Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu isku diyaarinayaa inuu dagaal nooc doona haade uu la galo markaasi dowladda Soomaaliya xitaa hadii ku qaadato markaasi in Kismaayo laga baxo oo la jabhadeeyay xitaa inuu diyaar u yahay markaasi haatan laga dareemaya sida wararka markaasi naga soo gaadhay magaalada Kismaayo ay sheegayaan Axmed Madoobe markaasi markii hore meesha waxa ku qabsaday jabhadnimo iyo inuu markaasi uu duurka u soo galay haatan hadii markaasi ay noqoto waxa uu leeyahay duurka ayaan u gali doonaa dadka qaarna waxay ku eedeynayaanba inuu markaasi uu gacan saar la leeyahay kooxihii khawaarijta ah oo markaasi xagga laga yaabo markaasi in uu fadhiisimo ka dhigto dhinaca kale saacadihii ugu dambeeyay waxa markaasi kulmay xildhibaan Firimbi iyo askarigii uu dhibaatada u geystay ama uu feeray ee ka tirsanaa ciidanka ilaalada baarlamaanka Soomaaliya Firimbi ayaa markaasi waxa uu si toos ah markaasi uu feerar ugu dhuftay askari ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliya oo isagu markaa ilaalinayay baarlamaanka Soomaaliya askarigaas oo lagu magacaabo markaasi Xuseen Maxamed Xasan oo kamid ahaa koox askar ah oo ilaalisa amniga xarunta golaha shacabka waxayna ku soo baxeen gacan qaad ka dhex bilowday kulankii ugu dambeeyay ee baarlamaanka Soomaaliya askarta ayaa isku aadiyay gudoonka baarlamaanka oo xildhibaano mucaarad ah ay doonayeen inay markaasi waxyeello u geystaan balse xildhibaan Xasan Firimbi ayaa qaaday tallaabo markii dambe aad markaasi uga qoomeeyay oo markaasi ku tilmaamay inay tahay mid guud ahaanba ka dhacday dalka oo dhan waxa ku baahay muuqaalka xildhibaan Xasan Firimbi oo feeraya askari aan sameeynin wax iska caabina oo markaasi guud ahaanba sharciga dhowraya waxayna noqotay arrin markaasi aad looga carooday si weyn markaasi loogu dhaleecay xildhibaanka taasi waxay markaasi keentay in guud ahaan Firimbi uu saacadihii ugu dambeeyay markaasi uu bixiyo raaligelin isla markaana uu xal mariyo askariga markaasi uu dhibaatada u geystay iyadoo halkaasi ay joogeen markaasi xildhibaano kale iyo qaybo kamid ah gudoonka ayaa waxa markaasi halka uu ku gudoonsiiyay guud ahaanba xildhibaanka askarigaasi qadar markaasi xal marin iyo guud ahaanba xal marin lacageeda
oo halkaasi markaa ku siiyay askarigaasi dhibaatada loo geysay. waxaan halkaas kusoo gabagaboobay kiiskii markaasi Firimbi oo maalmahan isagoo baxsad ka ahaa gurigiisa isagoo ku sugnaa guriga markaasi Shariif Sheekh Axmed oo uu markaasi magangeliyo ka doontay maadaama ay ku daba jirtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.